Buuhoodle waxaa ku dhibaataysan Zeynab Cabdi Jaamac oo ah gabadh dhalinyaro ah kana soo jeeda qoys danyar oo xoolihii ay ka dhamaadeen. Zeynab ayaa iyadoo qalliin waxaa looga sameeyay caloosha kadib markii ilmo iyadu uu ku meeday isla markaana ay qalliin xumaysatay. Aabaha dhalay gabadha yar ayaa u sheegay culimada diinka iyo bahda warbaahinta Buuhoodle inaanu u hayn dhakhtar dibadeed wax ugu qaado, waxaana uu sheegay in haatan ay saxaradu ka soconayso caloosha, waxaana ugu baaqay dadka islaamka ee jecel khayrka in la soo caawiyo. gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika Dr. Cabdishaafi Axmed Cali, Sheekh Cumar Soodani, Sheekh Cabdilaahi Maadin oo ka hadlayay magaca ururka gargaar iyo Sheekh Cabdirasaaq Xaasmud oo ka mid ah culimada diinka gobolka Cayn, dhammaantood waxay baaq u direen dadka islaamka ee jecel khayrka in la soo caawiyo. waana kan aabaha dhalay gabadhan oo warbixin ka bixinaya xaaladdeeda caafimaad. gabadha anaa dhalay, gabadha aabaheedaan ahay, gabadhu way foolatay, nin dhakhtar ah ilmihii markaas ka dhigay ku soo jiiday. gabadhii markaa way soo wada go'go'day, macdantii iyo kaajahaystii iyo malawadkii iyo macdantii oo dhan wuu isu go'gooyay. ka bacdi dhul badan oo dhakhaatiir baanu geynay, markaa hawsha faraha badan bay gabadhu la leedahay. iminkana dee meesha ay saxaradu ka imanaysa waa arkaysaan, waa la arkayaa. markaa dee sidaas ay hawsha faraha badan bay gabadhu ay gashay. ilmahana sidaasuu ninkaa dhakhtarkii ugu soo go'gooyay. laascaanood weeye meeshu, waa laascaanood. markaa Hargeysa markaa la geeyey iyo Boorame dhulkaba waa la geeyey. dee sidaasay markaa gabadhu tahay. markaa gabadhu hawsha faraha badan iyo dhibkaasaa soo maray. markaa dee sidaasaana markaa dadka islaamka iyo muslimiinta iyo dadka islaamka iyo muslimiinta ayaan markaa u soo bandhigay markaa soo booqanay gabadha xanuunsanaysa Zeynab Cabdi Jaamac waxaana booqashadana ay ahayd qayladhaan aabaheedu soo dhigay. gabadhaas oo xanuunkeedu ka tanbatay, waxaad arkaysaano waa qof aan awood lahayn, waxna qabsan karin, saxaradii iyo kaadadiina ay soconayaan, meel aan booskeedii ahaynna loo dalooliyay oo ka soconayaan, awoodna aan lahayn iyo wax tamara. xanuunkaasi dee qofkaas aad bay gabadhaasi ugu dhiban tahay sida ka muuqata. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أول شيء دكتوركو أرنت عن هذا ماشي أفردينه أنا سوون نميد وجواد عدباتيسن ماشي شفته أنا وأهل نمو إسلام ماذا كسركو معنا أقونين إنك سودتك أهل وهاي أو ضدك دجان كأي تاي إنك دلائي أو ضدك أهل عام هذا نقول هو اسمه غني معين كعلم هم بنروي عليه كواحد حتى ماشى وأي كروان هنتي يبقى ماشى وكجيا اللي دبنا نوقف بحني أنت مقطع باكم مقطع محيه توي نبرك أو جود ماشى كسحرون ساعة أو واحد هنتي اللي جنب رجال وقف قدامي سلام كتشره gabadha soo dayac ba ku dhacay, sufuran ba ku dhacay, ilmaha ku meeday, way dhakhtar xumaysatay, meel badan buu la maray, dhibaato ayaa u dhan. gabdhaha walaalaha Soomaaliyeed waxaan u sheegay gabadhaas gabadh walaal Soomaaliyeed da' yar mustaqbalkeedii kow yahay, ilmihii koobaad weey, da'deedu waa 20 jir wax lamida. waa qof xilligay maanta mustaqbalkeedii maarta uu bilowday inaad la waan dhibka oo qof kasta oo gabadha oo Soomaaliyeed ay isu xilqaanto gabadha walaasheed say ula wadaagi lahayd dhibka. sanayna cid kasta oo damiir islaamnimo ku jiro inay ka qayb qaadato, Soomaalinimo ku jiro, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dartii inay u soo caawiso qofkii wax badan heli kara iyo kii wax yar heli kara inuu ka qayb qaato wax gabadha walaasheed ee dhiban لو نختار لقوجينا كود غير قدر دمانتين إن شاء الله. هذه أدبا وما سنتين الله يبارك فيكم. وعلى عثمان فعال دكتور ودكتور فيش عالمي اسماعيل نيوز مقالة بوهول.